labadii maalmood ee la soo dhaafay waxa kulama yeelanayay dhalinyaradii hormuudka ka ahaa kacdoonkii Laascaanood. dhalinyaradani waxay halkan dheer u soo galeen in ay masiirkooda iyagu ka tashadaan iyagoo aan hubaysnayn waxay u dhiig baxayeen si ay hadafkooda u gaari lahaayeen. dhalinyaradan iyadoo loo adeegsanayo rasaas nool waxay sii wadeen kacdoonkooda ka dhanka ah in Somaliland sii maamusho gobolkooda. ugu dambeyn waxa ay ku guuleysteen inay gudaha magaalada Laascaanood ka saaraan ciidanka Somaliland. dhalinyaradani waxa ay geliyeen in isimada dhaqanka ay ku soo dhaweeyaan magaalada Laascaanood. imaatinka dhaqanku waxa uu ahaa guul weyn oo soo hoytay bulshada SSC. dhalinyarada kacdoonka hormuudka oo ahaa waxa ay sheegeen inay door xooggan leeyihiin korjoogtoona ka hayaan hoggaanka dhaqanka in aanay ka leexan jidkii dadku ay doonayeen ee loo soo dhintay. dhalinyaradani waxay baaq u soo jeediyeen isimada dhaqanka kana dalbadeen in aanay caqabad ku noqon halganka si buuxdana u fasaxaan awoodda ciidanka si loo xoreeyo deegaanada SSC. dhalinyaradu waxay ka codsadeen isimada inay halganka aanay ka leexin dada saxa ee guusha lagu gaari lahaa. ugu dambeyn dhalinyaradani waxay mowqifkooda ku sheegeen inay doonayaan in isimadu fasaxaan ciidanka si loo xoreeyo deegaanada SSC. ugu dambeyn buucan gudihiisa Laascaanood ahaato furin colaadeed iyo magaalo laga guuro oo aan shacab deganayn iyana waa aragti aan suuragal ahaan doonin. dhalinyaradu waxay saraakiishooda ka codsadeen in aanay fiirsan cadowga weli duqeynaya magaalada Laascaanood.